أنا أبو حمد دوني مينو ما لو قلت مينو شكل بدولة دونيو ردود بانا غادي حيريا kulan wacan oo wanaagsan dhageystayaal hal waa maalin khamiisa kuna beegan 26 Juun ku soo dhawaada dhageystayaal barnaamijkeeni dharaarihii tilmaanaa iyo qaybtiisii 20aad waxaana barnaamijkan alaabaad kala socotaan mareegta farshaxan waana soo diyaarintii baahda mareegta farshaxan isku dubaridkii iyo daadiintii anigoo cabsanaan Ismaan Marjeex Abu Hureyra hubka aynu ku dagaal galaynaa waa ka aynu ka qabsan doono ciidamada dawladda Inasiyaad isgaarsiinta aynu ku hawlgali doonaana waa isgaarsiinta aynu ka qabsan doono ciidamada dawladda Inasiyaad shidaalka aynu ku caanamaali doonaa waa shidaalka aynu ka qabsan doono ciidamada dawladda Inasiyaad tiknikada aynu ku dagaal gali doonaa waa tiknikada aynu ka qabsan doono ciidamada dawladda Inasiyaad sidaas ayaa inoo balana Allahu akbar wuxuu yiri walaalkay Allah u naxariisto barkad cas wuxuu yiri Maxamed Xaaji Ismaaciil Baatarca dhulka xaaluf ay xagaa kulul xabag baa loo gurto aan la xaalayn xoorkii laga dhamay xagaagii horiyo xusuus baageela lagu xirgeeya Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal Allah u naxariistee waxaanu anagu dadkii la qarniga ahaa ee gobonimada la soo dhaliyay ayaanu nahay ummad Soomaaliyeed waxay haysatay markaa wax yar bay isaga yaa xoolo ka haysay xoolihiisii ku mariyay anagu afkaanu haynay markaa gobonimada Ilaahay bayna siiyay oo aynu ku xamdeynaa ku shukrayna ku caabudeynaa awoodiisa inaga kiciyay laakiin dadaalkii baanu lahayn 14 baanu lahayn Maxamed Sagiis maxaa qoraa music tumaysa qayrada dad muumin qayr daya kuma qarsoontay qalaad yimi macaankii qariya xasuuste nin agoon ku xaday qalin qaaxa kama fogaatay mid kale wuxuu nin walaalkii qaayimay غير كم معك ها قبل وحو كدمي كو قانكو يا شعرنكو ها وهس وعي قلنا وددك marka ugu digaysa hantida umada in la lursado iyo lunsigeedu hadi mada uu leeyahay ay ka hadlaysaa wacyi gelin aad u fiican codkaasi dhageystayaal waa codkii Shamis Abakar Guduudo Carwo oo ugu waramaysay guushii la gaaray 26 Juun 1960 wariye Cali Caana Dhameeya bishan aynu ku jirno ayaa qoomiyada ku hadasha afka Soomaaliga gaar ahaan bulshada reer Somaliland ku leh qiimeyn iyo maamuuse waa bishii ummadda reer Somaliland hanteen xorriyadoodii ayna u suurta gashay inay dhisaan dawladdii ugu horeysay ee laga hirgeliyo waddanka Somaliland hase yeeshee shantii cisho ee ka dambeeyay maalintaasi ayaa bulshada reer Somaliland kaga tagay dareen aan wanaagsanayn dibna ugu khasbay inay halgankii dib u bilaabaan shantii cisho ee May 27keedii 28keedii 29keedii 30keedii iyo 31keedii ee gugii 1988 ayaa noqday maalmo lagaga nasto laguna ilaawi karo xanuunka iyo dhibaatada lagala kulmay shantaasi cisho ee Juun 27keedii 28keedii 29keedii 30keedii iyo 1 Julaay waa kan Mujaahid Maxamed Kaahin oo si kooban inaga waramaya sababaha ay bulshada reer Somaliland dib dhidibada ugu taagtay halganka mar labaad maandeeq lagu soo xeregeliyay Somaliland 1960kii Juun 26keedii bay xoradu Somaliland dib kalena kuma dhicin samadana mashaakil kagama dhicin lamana inqilaabin xorriyad iyo dad Soomaaliyeed iyo Somali Unity maxaan ku dhahday in ay doonaan wax xun ma ahayn laakiin sababta ku dhacday iyo sababta dhibtaas oo kala keentay waxay ahayd taariikhdeedii halgankii Ingiriiska ay dalka kaga xoreysay ayay Somaliland meelayn kari weydi Somaliland haddana maanta taariikh badan oo ay lahayd bay gaas martay asana maxay ka dagaalamaysay horta asana waxay ka dagaalamaysay talis aan dimuqraadi ahayn kaladii taliya ah macangag ah ummadda xasuuqaya qabiil u kala qaybinaya
إن عذاب سماستي إن يصير أديك عشان سماستي إن كستو أمده أي وضع بربرتي أو وضع بعضي هذا إلى أي حد قاركود لوجو تلقى على إلا حسوقه نظام نوع عسود دكتاتور شبه بي إسلام كده قال لميسي ذات كان مدحته جبته عقل عليه intellectual ka ummadahooda ka taliya danahooda waxa ay had iyo jeer ku xisaabtamaan marka ay cidi la hadasho dadku waxaan uu la hadlayay in ay dhagahoodu dhageystaan talooyinka la siinayo in ay taladoodu maqlaan innaga waxa ay soo maray xilli kasta oo talo la bixiyo xilli kasta oo Maxamed Saad Barre lala hadlo xilli kasta oo dawladdiisa iyo xukunkiisa lala hadlo marka lala hadlo jawaabtu waxa ahayd hadalka la daaya hal la xidho talada hal la joojiyo hal la ciqaabo hal laga baqo hal la xasuuqo asana markay sidaa u soo dagaalantay waxa ay u dagaalamaysay bacdama ay nidaam noocaas oo kala ka soo dagaalantay waxay u dagaalamaysay nidaam xor ah nidaam dimuqraadi ah nidaam saxaafaddu xor tahay nidaam xukunka loo siman yahay nidaam nin kursiga intuu iska fadhiisto aanu ka kici waayin aanu ku dul raqayuubin aanu isagoo asaasaqa ku dul talin aanu isagoo kala taliya xukunka dalka inuu tasarruf dimuqraadiyadeed yeesho oo cidi xukunka dhiibi karto cidina ka tagi karto marka imka watana waxa la ogaaday mushkiladda Afrika inaanay ahayn dhaqaale la'aan laakiin mushkiladda Afrika inay tahay xukun xumo dimuqraadiyad la'aan dictatorship kala talisnimo kursiga ka kici maayo shantaasi maalmood ee guulaha maanta bulshada reer Soomaaliland nabadda ugu wada nooshahay keenay ayaa ka dhashay isbiimeyn ku salaysnayd geeri ama guule waa kan Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo oo gudoomiyihii SNM xilligaasi ahaa iminkana ah madaxweynaha dalka Soomaaliland oo xilligaasi dagaaladu socdeen uga waramayay idaacadda BBC-da sababta ay SNM iyo dadkii taageerayba iskugu biimeeyeen halgankana u galeen waqtigiin inuu halganka soo muddo dheer imika u soconayay kaas oo lagu jiray nidaamka maanta ka dhisan dalka Soomaaliyeed oo muujiyay naxariis darro muujiyay غير مسؤولnimo muujiyay oo ku dhaqaaqay wax ka baxsan bani aadamnimada ka baxsan dalkii oo dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan baabay ummadii xorriyadeedii siyaasadeed iyo xorriyadeedii bani aadamnimo iyo tii dhaqaale iyo tii dadnimo mid walba heerka ay gaadhay laga wada dheersay halkan ku dhashay inuu dadku dalka ku nool meel kasta ka joogay inuu xorriyadiisa u dagaalamo inuu xuquuqdiisa cashado inuu iimaankiisa diintiisa iyo dhaqankiisa u madax bannaanaado in nidaam dimuqraadi ah oo xor ah oo ku dhisan ikhtiyaarka dadka doorasho xalaal ah oo dadku u xukuumadda dimuqraadi xaq dhisan in laga sameeyo halkan وبرامي heshiis qalinka lagu duugay bishii Abriil 1988 ayaa dhex maray dawladdii Mingiiste iyo dawladdii Afweyne saamaynta uu ku yeeshay heshiiskaasi ururkii SNM iyo falcelintii ku salaysnayd go'aankii midaysnaa ee ururkii SNM ayaa guushaasi keenay waxa maalmahaasi u dhacay heshiiskaasi labada dawladood ay ahaayeen maalmo runtii aad u darnaa waxa loo baahnaa nafurid maalhurid iyo isbiimeyn aan loo kala hadhin waa maalmihii la tabayay geesi geerida ku dhiiran waa maalmihii fula goobaha dagaalka ka durkay geesiyaashii geerida u bareeray waxa kamid ahaa mujaahid Ibrahim Meegaag Samatar ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiya isaga oo mujaahidku u waramayay Sakariya Ismaaciil kana hawlgaliyay idaacaddii codka Soomaaliland ee gobolka Minneapolis ee cariga Mareykanka ayaa waxa uu yiri waa ayaama waxay ahaayeen ayaamaha aad iyo aad u kulul ayaama kulul bayna soo maray ayaamaha u kulul bay ahaayeen ee halganka soo maray waayo kaynu la diriireynay iyo kaynu martida u ahayn ayaa heshiiyey waxay filayeen mid waliba jabhada ku kacsan ina uu xafuujiyo dabcan afweyne waa horay baktiyeen jabhadii xaqiisa joogay Itoobiya la diriirayay waxa la xafuujin lahaa waa SNM inkastoo dawladda Itoobiya markaa joogtay ay ballan qaaday in idin dhiibi mayne laakiin heshiis baanu galay dib uga soo ceshada ciidamada inagu deetaa kumaynaan dagmin waxaanu ka door bidnay in dabka la isku tuuro
oo laga doorbido halkii lagaaga dhiibi lahaa siyaad barre in lagu dhinto dagaalka waxa lagu kalsoonaa waa mide in haddii ay beedmaayo dadka guduhuna intuu kaco ku raaci doono waxa lagu kalsoonaa in ciidamada afweene dhabarka la jebin doono waxa lagu kalsoonaa in hubka uu haysto laga qaadi doono waxa lagu kalsoonaa in markaa isna wax yar baabay ahayd dadweynuhu dhammi uu dagaal geli doono dhinaca siyaasadana aad bay u sii qumanaan lahayd oo awal waa kii ku dacwoon jiray xabashada ay soo weerartay way dacwadaasi way dhammaanaysaa markaa ilaa dawladda Itoobiya baan u diidnay waxay ku talisay waana la arkaa dawladda Itoobiya inaan gelin tii baana ilaahay ka dhaweeyay waatiin magaalooyinkii galayno qabanay deetana waynagii ku guulaysanay inaynu dadweynihii qixino haddana dagaalkana halkii ka sii wadno natiijada taas waxay noqotay sidii la filayay in dadkii oo dhammina uu dagaalka soo galo xukunkii siyaad barrana uu ka baaba'o waqooyiga ciidamo meel tuban oo aanu marba gaadno mooye dalka magaalooyinka hareerahoodii buuraha ilaa xeebtiya baddana aynu qabanno oo markaa 2 sannadood dabadeed sahaalo inoo noqotay inaynu durduro ku erino ayaamahaasi waa ayaamaha la ogaaday dawladdii isku jirka ahayd ee Soomaaliya lagu sheegi jiray halka ay quwadeedu ama dhaqaalaheedu ku fadhiyo marka waqooyiga dawladdii siyaad barre lagu jabiyay ayay xoolo dhoofa yaraadeen baanankii xamar kaceen iyo waddankoo dhammi raashin beelay lacagtii adkayd dulcad loo soo doonin jiray runtii caddaatay markaa yaa lagu noolaa halkii fikradu awal ay ka ahayd ay moodayeen dhulka webiyadu inuu dhulka barwaaqo dhaqaalaha soo saaray yahay waxa caddaatay markii waqooyiga dagaalku ka dhacay dawladdiisiina lagu jabiyay meel walbana aynu hareereynay inuu dalkiiba muflis iyo iflaas qaatay markii heshiiskaasi dhacay ayaa ururkii SNM go'aan ku gaadhay in aanu jirin wax hadhay oon ahayn geeri ama guule go'aanka ayaa loo tiriyaa in saraakiishii ciidamadu qabeen hase yeeshee aanu maamulkii SNM ku raacsanayn waa kan Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo oo markaa ahaa gudoomiyihii SNM imikana ah madaxweynaha waddanka Somaliland oo go'aanka in loo midaysnaa iyo in kale ka waramaya khiyaamaan runtii ku sameynay markaa Itoobiyaanka iyo siyaad barraba oo aad noogu hirgashay ilaa xad ma waxay in ciidamadii firqsana intaanu aaga bari iyo aaga galbeed ka kala dhigno Maka iyo Madiina la oran jiray 2 barood baan ku soo ururino 15 kilomitir dib soo noqono dabadna marka ciidamada siyaad barre noqdaan ee xariim inuu ku xirasanaayeen dhufaysadooda ee ka baxaan kuwan Itoobiyaanku inaga guuraan ama ay soo noqdaan meeshii oo cidlaan aan cidi inaga daadaynin aynu ku dhufano oo gallo oo saas ay noogu hawl yar si kale inuu yeelana garanayno ko magistaan u tagay anigu iyo wafdi aan wataa magistaan toos u wada hadalay waxaan ciidamadeedii sidaad ugu amartay waanu soo celinayna laakiin waxaan doonayaa ciidan ilaa 1500 ilaa waxoogay aan geliyo gudaha si wiilashan dadkii reer miyiga ah iyo tuulooyinka iyagoo dharcada waxaan doonayaa waxoogay shidaal ay siiso waxoogay dhaqaale ay siiso iyo waxaan ciidamada ku soo raraa intaasi aad iyo aad buu ixtiraami jiray wuu iga yeelay intiiba wuu iga yeelay waxaan u sheeg ciidankaaga harar ku joogay taliska intiiba u sheegay marka ciidankaygii markaan soo celinay waxay u qabeen inaan la cooperate garano waan tagay dagaalkii baan saxeexay waxaanu dhaqaaqa waqti baanu siinay waxaanu baxa markay ciidamada siyaad barrana ka caanay dhufisadooda ka baxaan ka tagaan kuwa Itoobiyaana ka soo noqdaan weydaartu ciidamada taagna markaa gudihii gal dariiq kale oo noo furaabaan jirin ko hadda maxaa jiray waxa isla markaa noo muuqanaysay khilaafka gudagalka la isku mahayn khilaafka gudagalka waan u badnayn way jireen dad ay markaa ugu muuqanaysay oo laha war isbaqiiqa noocaasi sidoo u shaqayn kara way aragtahay waayo intee laag baynu wada karaa awoodeeni iyo wixii way jireen ara way jirtay laakiin mabda'iyan ciidamadu waxay ku buuxeen kulligeena ku buuxeen islaana garanay islaana qaadanay inaanu gudagalka aanu sameynaa wuxuu mid general u badnayn buu waanu khiyaamayna lacag baanu ka qaadnay shidaal baanu ka qaadnay waxaanu soo noqonayna dagaal kelimada dabadna dagaalkii baanu galnay dabadna waxaan noo balanahaa oo aan ugu sheegay markii dambena waxa weeye ciidamadu iyaga iska galay dad badan baa waxay u qabaan oo yidhaahdaan farsamadii aan ugu talagalay inaanu Itoobiya iyo madaxdeedii markaa joogay ku khaladno oo aanu wixii aan ugu talagalay inaanu sirteeda ku daahno si aan hadhowto dee xiriirku nooga xumaan haddaan u baahnaba ayaa dadka qaar ku qaata may ahayn waxaad go'aan anigu qaatay waxa go'aan guddi loo qaatay waxa go'aan oo saxanay guddi kale ilaa sano ciidanka uu kala raacay guddi dagaalgelin baan sameynay oo
kooban baanu samaynay oo agan ku wada qaybinay oo wax walba diyaar baan sidaas horta ciidamadu ay meesha ku galeen hase yeeshee waxaa qaba sidaasi ka duwan koox kale oo ka tirsanayd ururkii SNM waxaana kooxdaas ka mid ahaa Mujaahid Xasan Guure waxaanu yiri mujaahidku isaga oo ka waramaya arrintaasi sidayna imika Somaliland go'aansitaageeda uga hadli karin baan maalintan dagaalka looga hadli karin marka muu jirin chance madaxweynuhu si kastaba ha uga jeedo dagaalka markii gelitaankiisa go'aankiisii uu diiday inuu saxo gudoomiye Siraayo eedheedkii markii dalka soo geli doono gudoomiyuhu uu diiday inuu saxo waliba markaan go'aankii gaadhnay ciidamadiisa yimaadeen qasab noqotay in la tiro Axmed Muuse Xaxin laba guddoon oo soo qaybanay qolaha Hadraawi madax ka ahaa galbeedka la siimaray dadkiisa abaabulan bay ahayd iyadana gudoomiyaha Siraayo ka madax ahaa inuu si abaabula bariga bay ahayd inaanu joojiyo kulanaabay ahayd aan xaaladii ku wada qiimeeyno dabeetana waxaanu yeelanaa ka tashano shirkii markaan isugu nimid jigjiga anagoo saa wada fadhina ayuu Axmed Maxamed Maxamuud madaxweynaheenu markaan gudoomiyaasana intuu kacay xafiisna ku xigay telefoon yaali galay wuxuu nagu yiri inta soo noqday qoladii Etoobiyaanka ahayd asfaa oo la jiray oo la xiri jiray ayaa harar jooga qoladii bay yeedhisay shirku inuu xiran yahay waynu brito Axmed halkaas aan ugu dambeysay aragtida tabana BBC soo qaaday London joogay London lagu waraysan London ayaa dagaal u dhacay ayaan ku warhelay adu halka dhaafimaayo sheekooyin halka qudheeda ku jira oo aan nimankaan rabin arag si kastaba ha noqotee waxa la bilaabay in la diyaariyo qorshihii gudagalka waxa go'aan lagu gaaray in la xarka xidho oo dalkii la galo lagana boqolo deegaanada Itoobiya waxa isbedel uu Axmed Maxamed Maxamuud Siinaanyo oo ahaa gudoomiyihii xilligaasi iminkana ah madaxweynaha dalka Soomaaliland ku sameeyay hogaankii ciidamada waxaa xilkii la wareegay Axmed Mire halka loo magacaabay Jaamac Ali Ilaahay u naxariistay taliyihii ciidamada Xasan Yunis Habanana Ilaahay isna u naxariistay taliye ku xigeenkii ciidamada waxaa ciidamadii SNM loo qaybiyay laba qaybood oo kala ahaa aaga Madiina oo taliye looga dhigay Axmed Mire iyo aaga Maka oo uu hogaaminayay Ibrahim Degaweyne waxaa markasta la isku raacsanaa in geeri qarka loo saaran yahay waxaase lagu kalsoonaa in halgankaasi guul keeni doono oo aanay marna damayn dhimbisha ay shidaan waa kan Mujaahid Cabdiraxmaan Cali Faarax oo arrintaasi isbiimeynta sababta loo galayay waxay nooga iftiiminayaa waxa ku galifay waxa inay SNM jirto ama aan jirin in halgankii jiro ama aan jirin afaalada waxa la yiraahdo Jamal Cabdinaasir Baabarigiis waa iskalaabka yiri وروح على الإجراء عبد العزيز وهو ما يسن عيدا بدل ما يسن سيبقى بليلة إنجليز كان فرنسيس كان يهودا وعيني أن نكون أو لا نكون إلى جرلو إنا جرين ولا أصيرك على طريق الأبوي ما يتعصب كلي تطبيق الله تكيمي يكوب يصدق كلام العايم إلى هلك كيدمو وشغلتي سيدنتو إنو سيصعدو أو أمته دقالك هلكي كسي وطو لما صار لك الدورتي واحد يقول أنا جاني لما يدوروا بعشي إنه حافظ نقولنا لأنك لبتشو يا إنه تقال كيسي وأنا لما عم بعيد سلاسة لوسوق تلك أرض عباهي هل كي لو حرية تلك تاريخ يكون نقول ما dhammaan xubnihii SNM waxay diyaar u noqdeen inay geerida haleelaan si jiilka dambe ugu noolaado nolol ay ku dhahan tahay xorriyad iyo rayrayn dareen shaki marna kama hayn inay guusha helayaan waxaanay se hubin in iyagu guusha dadka la wadaagi doonaan oo Ilaahay nolol ku gaarsiin doono kalsoonidaasi oo ka muuqata waxa laga dareemayay dardaarankii ay reerahooga iyo caruurtooda siiyeen khadka telefoonka ayaanu ku tiigsanay marwaleyli oo u dhaxday Mujaahid Cabdisalaam Turki iyadoo oo inooga warantay dareenkeedii iyo dardaarankii uu u jeediyay saygeeda Mujaahid Cabdisalaam Turki markii goobaha dagaalka uu sii socday waxaanay marwaleyli ay tiri sida tane dagaalkii leeyidii Soomaaliya Itoobiya way heshiisay waxay nagu ahayd adduunka imikun baa laydin qabqabanaya wadankii ku noqonaysaan waxa igu dareed raadi Hargeysa waxay hadii jeer la saaray samadiido dabin baa ku xidhan taana waan ka baqan jiray siyaad bari markuu dadka dilay ayaa heesta la saari jiray waxa dhacday in uu fariin helay Maxamed Cilmi Samatar soo diray uu leeyahay waa inaad saanad iyo raashin iyo hub naga daba keentaa waanu baxnay anagu marka horeba saas soo haray wixii isku wada diyaariyay markuu sii baxayay aniga carruurta nala sii dardaarmay wuxuu yiri carruurta wadankii ku celi wadankii haddaan dhinto inaan dhiman inaan noqon noolaan war ma hayo quraanka bar diinta bar
quraankiisa oo akhriyaha ilaawine oo caruurta wadankan ka kaxee waxaad ku celisaa wadankeeni gee Somaliland ha bartaan quraanka intaas 2 goor 3 goor ku celceliye isaamaxa daweydin ka nabadgeliyo insha Allah de wadanka xoreynayso iman hadee noqotee marka uu naga tagay hadana aroortii dambe waa berigii ayuu igu soo noqday 5 aroornimo marka habeenkii baan ka fakaray demi soo noqon soo noolaan laakiin markuu ila hadlay kama fakaray oo yimid markaas ma ladantina haay markaan u baxaynaa nabadgeli marka xir halkaan deganahay xirada SNMta u dhaweyd marka gaariyadii iyo wixii oo raashinkii halkii ciidankii ku diyaarinayo ka soo yar caraday oo noo yimid haddana wala 5 daqiiqo haddana dib uu nooga noqda xeradii waan ilaa imkadana ay muuqata sidoo u sii caraday halka ku sii caraday sidee ahayd de halkiiba haddana ciidankii ka daba tagay de halkiiba gaadhiyadii ciidankii ku baxay markaas dagaalkii ku bilaabmay 4 bilood kadib baakii oo dhaawac lagu soo celiyay Dirdhabe marka dib loogu daweeyay waxaa xusid mudan culayska qoyseed ee ku habsaday marwooyinkii mujaahidiinta xilligaasi dagaaladu socdeen hub iyo shidaal wixii la hayay ayaa la isku keenay hubka la hayay wuu dhaafi waayey maalin dagaal shidaalkiina wuu ku fillaan waayey labadii kooxood waxaa dadkii dhiirigelin u noqday hadalladii ku xardhanaa khudbaddii mujaahid xasan yuunis habane ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiya hubka aynu ku dagaal gelaynaa waa ka aynu ka qabsan doono ciidamada dawladda Inasiyaad isgaarsiinta aynu ku hawlgali doonaana waa isgaarsiinta aynu ka qabsan doono ciidamada dawladda Inasiyaad shidaalka aynu ku caanamaali doonaa waa shidaalka aynu ka qabsan doono ciidamada dawladda Inasiyaad tiknikada aynu ku dagaal gali doonaa waa tiknikada aynu ka qabsan doono ciidamada dawladda Inasiyaad sidaas ayaa inoo ballana Allahu akbar Allahu akbar waa kan mujaahid aadan cabdi abyan aadan cadde ilaahay ha u naxariistee oo si kooban uga warramayay wariye ducaale kalsoonida intaa leeg sababta keentay inay xubnihii ururka SNM siiyaan iyo siday ugu wada heelanaayeen geerida ay guushu uga dambayso jiilka dambe ee soo koraya waxa dhacday in ay Soomaaliya iyo heshiiyeen wala lagu heshiiyay mingiista ku dhisay wax ku socday jabhadii Eritrea kale wixii ba ku socday marka waxa weey labadeena laba jabhadood bay kala wadnaaye aan heshiino ergay buu diray waxay goosteen qalabka warbaahinta oo aynaan iska caahin inaynaan jabhaday isu samaynin one bullet inaan qolana dhexdeena ka xabadina isku riday wax jabhad leeyda inaan dhexdeena joogin way loo yimaadeen madaxdii war waxaasay nagu dhacay xabashidii way soo daysay nimankii aanu discipliinka iyo waxa xilnay nadaafa leeyda way in xabashiya oo kabtano leeyda ababe ayaa marka wixii maqalay oo saaxiib ahayn ayaan war hadii aanu dagaal gallo oo laga adkaado oo dib ugu soo noqono xuduudka sidee oranaysaa أنا وحبايد ما نهدي بقول وان ده صاحب بينه عين رك بدون صاحب باكو يشي بقول لكن أمريكا دولته قمت ليش إنت إنه إذا قبلنا أي المدين دي بينا سوماليا نودي اللي نقبض هو يهنا كوانا نقبض نو ما يحرين بركة واحد علي إنه شير بانك هو أحمد وينها مانتا إن سومالي لان إن وتجي لو بجدود وبريا واي إنه سراكيشي السجوياري قلبيتك وحكتك محمد علمي سمطر دغه weynahan maanta la dhajooga dayib guray iyo aniga halkii baanu saraakiish isugu nimi marka waxa uu yiri waa arkaysaan de waxa la yiri wax jabhada lama sameyn karo ciidankiinu xagga ciidamada yadaha ka mareen markaana deni walba reerkoodii boqorka u qaadanaya uu iska tagaya ama dawladaha soo uray magangaliya siyaasadeed ama dawladda Itoobiya waxba nooma marka waxaanu yiri gudahan galeeyna واسكو شوينا تيدي سراكيش قدومي أورك أو جوجا واي هاو فيلنا بورد ساس يا حب يا شيدال مدنا إنا إثيوبيا كهشام يلكد بانور ودعنا سلايو صحيح إذا ما دي سومالي سكوت كاها أيا نين كورنيلا أيا مرلو شيكيو شيكدي سو بدنيد إن عبد الله حسون ما نقول لها ما كده بتكتيك سيبو كلا واي وأفر حالة هذا يسوق هذا dagaalka
boqolkiiba 50 adigoon dagaalamin ayaad haysaa sheebkay kugu jiraan buu 50 baa ku dagaalamaysan buu 25 dagaalkii maxaad markaa haysataa 75 baa dagaalkii weyn tahay hadda dagaalkiina wali baad gelin markaa waxay sukaaya raacday afartu wuxuu yiri dalaqoontii haddaad haysato dadkii garanayso dadku hadduu adiga ku raacsan yahay hubka iyo rasaasta haddaad haysato boqolkiiba 50 baad weyn tahay adoon dagaalka gelin waxay sukaaya raacay afartii xaalo dalaqoontii baanu garanaynaa aqalkii reer hebel iyo dukaankii reer hebel iyo meesha ay ka gidi waan wada garanaynay dalaqoontii baanu haynay dadkuna annaguna raacsana shidaalkii laayay ayaa lagu anbabixiyay ciidankii loogu wanqalay Madiina socdaalka iyo jidka oo dheera awgeed ayay ka fursan weyday in iyaga la soo anbabixiyo mar kale waa kan mujaahid aadan cadde oo ilaahay ha u naxariistee ka warramaya sababta gelidda Burco ay ugu horeysay gelidda magaalada Hargeysa waxay Soomaalidu tiraahdaa Burco maxay Hargeysa uga horeysay waxay uga horeysay markii hore booyadu waxay u shubtay bariga shidaalkii markay bariga u shubtay stopti nagu dhacday iyadoo galbeedkii aan waxba loo haynana shidaal hayn intii horeena daadu mishinadii ku galay marka waxaanu niri markaanu dhooba guduud joognay waxa ku ordineetar ciidamada laga dhigay Maxamed Kaahin wasiirka gaashaandhigana waxa markaa loo magacaabay jaamacada cilmi Allah u naxariisto waxaanu niri waxaana sugtaan 7 casho laba talis baanu soo bariga iyo galbeedka Makka iyo Madiina shidaalkii soo helay markay 7 casho la joogo horta todobadii aanu anagu niri markii la joogo ayaa ciidanka dhaqaaqa Maxamed Kaahin ku ordineetar buu ahaa labada ciidan isku xidha marka Maxamed Kaahin wuxuu igu yimi meesha lagu dhaqaana shil ari la yiri jabad waa cunto reermiyugu nafsiyan oo ka raraya ciidankii saa ku dhaqaaqay buu muxuu dhaqaaqay shidaalkii helay in kale biyaan ciidanku la sugaynin 7 casho la qabta 10 casho qaadato 3 casho waa naga ka dambeynay wax alla waxaan ku dhaqaaqnaa ma jiro shidaalku waxaan u dirnay waqti meel walba laga xiray وانا هنتي وداك لما اقرا وضع امر ويان محمد حاشي علمي وقاضي يقانا ماشي قاضي وما كلش محمد حاشي علمي هو يدي ميل بكو قري قارقو اركبنا وقرنا يا ددكو قرن وحور دران يغو سو شو اما لبا يغو سو شو قارقا لعقتا قادو دران با لغو شويه بويده قلبا 10 شيء قادت waxaa sidoo kale kala dambeynta sababta keentay inooga warramaya mujaahid Muuse Bixi Cabdi oo ku taageersan sida uu u sheegay mujaahid aadan cadde ilaahay oo u naxariistay waxaanu yiri mujaahid Muuse Bixi sida tana laba soo xawr arrin saada markii dheerka la galay waxa loogu dhaxaa wixii kala waa la iska haysto wada qaada shirka iyadoo aan wax naga hadlo iska saadkii naga hadlo qolada Itoobiya kuna siyada inaan wax naga yimid ay deebraan marka waxa la helo maadaama ay naga dhul fog yihiin oo anagu de xagga jigjiga dabaan uga dhowrahay qolada bariga si xisaab iyagoo wixii aan haynay ee shidaal hal magaca takurtii waa haystaan oo anagu aynaan de anagu aan soo qaadano ay jooji tana in badan dhowr shaqo kala duwan leeyahay masuula tadoo shan jibara way waxaan shidaal ku dhaqaa shidaalkii markii ay qolada siinaysa laga goosatay waxa tuugan lagu soo iibtay maxamed xaashe oo jigjiga joogay ayaa foosto dhowr soddon gaari lagu maanay labaatan shicba iyo dhowr tobanka markaa dhulkaygu lagu dhow yahay sida kuwa qolada dhul badan ma qaadano shaaka badan qaateen laakiin intii aan u baahnayn baa nagu adkaatay oo gabadha qaadaha la soo saarsaari jiray maxaan u kala hordhacay qolada dee waa laga warhaa وهذه عايزين شغال وعيد كل صورة اللي عدو مساكن وقريه إذا لو نقول سوق قريه ورد وانا الأول هذا يورد واحد يوحد ورد هنقدر ندور ثاني ورقة أنا الشيء حتى عمل كده ما أنت يورد واحد توش واحد جيزون قارسية حتى واحد قاري حمارة ذيك العمر سوق هذا مناه ما كان هلا ما هو سوى حد سنو قارسية إلى رجل وقرا واحد بعدين أو كل غير هو ده اللي قدر يسوق ciidamadii SNM oo laba qaybood loo qaybiyay ayaa qayb saddexaad lagu daray diyaar garowgii saddexda ciidan ayaa haystay muddo kooban waxa taasina u raacaysay shidaal la'aan hub la'aan iyo gargaar la'aan dhinac kasta oo agabka dagaalka ah hase yeeshee waxay hayeen niyad wanaag iyo ujeedo ay dhammaantood ku qanacsanaayeen waxa intaasoo dhan u raacaysay kalsoonida ay mar walba ku qabeen in Ilaahay guusha iyaga siin doono waa kan mujaahid Maxamed Cilmi Galaan oo wax ka weydiinay qaabkii diyaar garowga ee ciidamadii SNM 1988 run ahaantii
diyaar garowgu de waxa weeyaan waqti aan badnayn buu ahaa maadaama jirin waxa arrinta ugu adag ay ahayd shidaalka kaliya maaha waa rasaasta maadaama aan rasaasna la siinayn oo nalaama bixinayn dagaalka iyagu waxa dagaal kadisa markaa dibetana saasan ku ama baxnoon dagaal ku qaadnay wuxuu ahaa dagaal anaan u diyaar garoobin oonan urursaas urursan loo shidaal urursan buu ahaa bariga iyo galbeedka runtii way kala yargadisnaayeen oo bariga waxoogaa u diyaar garoobay laakiin galbeedka markaanu ka soo baxnay jeelka iyo markaanu dhaqaaqnay wax badan umay dhexayn dir dhaba lawigi baanu joognay intaan aanu joognay aanu ku diyaar garoona waxayd 11 ilaa 12 cisho ayaan ku qiyaasi karaa runtii intay ahayd markaasaan ku dhaqanay saasay ahayd dhaqaaqay saddex dhinac buu ahaa aaga bariga oo burcal geliyay iyo aaga galbeedka ay markii hore ahaa qayb kaloo dhexaa la sameeyey oo ah in la galo cadaadley markaa qaybta bariga waxay dhaqaaqeen 27kii qaybta dhexna waxay dhaqaaqday 29kii qaybta idan galbeedka waxaan dhaqaaqnay 30kii saasa loo kala horeeyay qolo waliba aagii ku baagnaa ayuu dhaqaaqday markay 7 cisho ciidamadii Madiina sugayeen kuwa aaga Maka inay helaan shidaalka ayna ciidamadii faqashtu ka warashay ayay isku habar wacatay siyaasi darteed ayay tala noqotay inay ku dhaqaajiyaan sidii qorshuhu ahaa burcana kuwa bariistaan ciidamada waxaa hogaaminayay Mujaahid Axmed Mireeh waana kan mujaahidka oo inooga waramaya siday ku galeen magaalada Burco markii aan warxilka wareejiyay isla markiiba waxaan noqday hadana taliyaha qaybta Madiina bariga Ibrahim Xuseen wuxuu noqday taliyaha qaybta Maka ee galbeedka markii aan ciidanka ka soo dhaqaajinay samata raxmaan ka soo dhaqaaqay maghrib bay ahayd salaadii maghribada ciidanka ku tuji markaan tukanay ducaysanay ayuu baabuurteena ka fuulo tan caadi nagu dhacay ka dhaqaajin waxaan ciidanka u sheegay baabuur walba waxa ku jira shidaal kooban shidaalkaasi wuxuu ina geynayaa magaalada Burco inagama soo celin baabuur walba waxa ku jirta rasaas aynu raaca koowaad kaga gudbi karno ka labaad kulama dagaalanka waxa hantidii shidaalkii rasaastii hubkii gobonimadii waxay taallaa ciideena ma ku dhimanaa ayaa qof walba isugu og taa oo aan qofna shaki kaga jirin ayaanu gaadiid ku soo furay sidii baanu ku soo gaadhnay Burco salaadii subax waxaanu ku tukanay halkii uu ku faani jiray ee la oran jiray barta ee la oran jiray looma dhowaado qofka u dhowaada wuu dhintaa halkii lafteedii baan ku tukaday markay arkeen dadka iska soo socda ayay baasuuqiyaan lagu soo riday markaasaan yidhi waxbaa ku ridina iska socda markii waxba lagu ridi waayo iska soo socday bay yaabeen mala waaba laydinka horeeya xaggii magaalada laydinka jiray balga kullaafihiina halkiiba iyaguna dib uga yaacay dagaalkaas rag badan waa ku geeriyoodeen ragna waa ku dhaawacmeen anigoo taliyihii ciidanka ahaa waan ku dhaawacmay markaan ku dhaawacmay ay yidhaahdeen war meeshan kaasaan waxaanu ilaa cadceedu dhacdo ka bixi maayo sugin waxa ii noqotayba naxariis ilaahay xaggiisa iga furay oo hurgumada iga baxday baan ku kala dugan wax ku kala gartay oo aragii ku kala markaa anigu aan ka tegey saraakiishan aan sii wada tashanay waxa xukunkii markaa gacanta ku dhigay oo ay u dhiibeen saraakiishu ninkii ugu waayaragsanaa ugu daada weynaa oo markaa weliba dhaawacoo gacan keliya Mujaahid Xamdulle ayaa markaa waxa weeyaan maalinta dagaalka aynu qaadnay kadib dalkeena dib uga maynanay dagaalkuna ma hakan sidoo kale waxaan taariikhdu hilmaamayn haweenkii ka qayb galay halgankii dib u soo noqoshadii Maandeeqa iyagoo oo siyaabo fara badan haweenkaasi uga qayb galaya hase yeeshee qaybaha aan la xusin waxa kamid ah inay qoriga qaateen waa kan Mujaahid Axmed Mireeh oo ka marakacaya in haweenku dagaalka qoriga ka qayb galeen waxa xusid mudan hada jeer waxa la sheegaa ragga dagaalka galay ciidanka Burco waxa kamid ahaa koox gabdho haween kamid ah waxaan ku yiri gabdhayo iska jooga
maanta raggani rag ku talagalay inay soo noqdaan maaha iska jooga way la doodeen si geesinimada ayay la doodeen oo wadaniyad leh waxay igu qanciyeen inaanan ka tegin waxaan alla goostay oo ku dhiiraday inaan kaxeeyo dagaalka u geeyo allahu akbar allahu akbar hablihii maalintan meel socda qaar badan baa yurub ka jooga qaarna dalkiiga jooga intooda badan way badbaadeen ilaahay dagaalkii waxba ku bixiyey waxa weeyaan waxyaabaha xusuusta mudan weeyaan markii howlgalka burco lagu qabsaday ayaa axmed maxamed maxamuud siilaanyo oo jooga magaalada london ee cariga ingiriiska uu waraysi siiyey idaacadda b b c-da waxaanuu waraysigaasi kaga warramay qabsashada magaalada burco waxaanuu yidhi duulaanku wuxuu ku dhacay muddo badan baa ka xiran waa tii u dagaalamaysay ahayd urur xornimo doona waa tii dalka gudihiisa ka dagaalamaysay muddo badan diyaargarow ayaa ay ku jireen ciidamada dhaqdhaqaaqa wadaniga soomaaliyeed marka waktigii ay ula muuqatay inay fursadu ahayd ayaa dagaal kerisa shacbi weynuhu taageersan yahay meelo badan lagaga soo baxay ayaa lagu qaaday dhinacyaal badan oo waddanka ka mid ah oo aagga waqooyi ka mid yahay halkaa dabeedna waxaa lagu qabsaday magaalada burco isla markiiba maalinnimadii jimcaha 27-keedii bishii shanaad ee 1988 ciidamadii xoreynta ee SNM ee qaybta bari oo lagu magacaabayay Madiina ayaa ku waabariistay magaalada Burco maalinnimadii sabtidii 28-kii bishii shanaad isla gugaasi 1988 ayay ciidamadii SNM ee jiida dhexe ku ruqaansadeen jiidaha ku beegan ceelka Gadiis iyadoo oo mujaahid Maxamed Cali Ilaahay ha u naxariistay gacanta ku dhigay ceelka Gadiis maalinnimadii axadda 29-kii bishii shanaad isla gugaasi 1988 ayuu mujaahid Xuseen Axmed oo ku magac dheeraa Xuseen Dheere Ilaahay ha u naxariistay uu galay qabsadayna cadaadley dib badanina ka soo gaadhay ciidamadii afune ee ku sugnaa halkaasi ciidamadaasina waxay ahaayeen gurmadkii faqashta ee ku soo socday Burco si ay halkaasi uga geystaan taakulayna maalinnimadii isniinta ee 30-kii bishii shanaad ee isla gugaasi 1988 ayuu Maxamed Cali Ilaahay ha u naxariistay weydaartay oo u weeraray Mandheera soona furtay maxaabiistii halkaasi ku jirtay maalinnimadii salaasada 31-keedii bishii shanaad 1988 ayay ciidamadii xoreynta ee SNM ee qaybta galbeed ee 31aad ayaguna ku carraabeen magaalada Hargeysa waxay ahaayeen 5 cisho oo lagu ilaawayo shantii aynu galnay gefkiisii xitaankiisu inagu qaatay in ka badan 30 sano shantaasi waa bishii Juun 27-keedii 28-keedii 29-keedii 30-keedii iyo 1-dii Julaay ee 1960 waxa weeyaan maalinta dagaalka aynu qaadnay kadib dalkeedii dib uga maynanay dagaalkuna ma hakan 27-kii halkaas ka dhacay boro ka dhacay 28-kiina ceelka Gadiis ayaa Maxamed Cali galay markii ciidamadii calaamiyay weerareen 29-kii wuxuu galay Xuseen Axmed bin Xuseen Dheere wuxuu galay Calaadi 30-kiiba haddana Maxamed Cali weerartay wuxuu galay Mandheera 31-kiina Ibraahim Xuseen oo hogaaminaya ciidamadii Maka ayaa Hargeysa soo galay shanta maalmood isdaba socda maalin keliya muunasan cadowga Burco ilaa Hargeysa ilaa xeebta ayaa lagula dagaalamay halkaasaa guusheedii ka bilaabatay ciidamada aagga Maka waxaa hogaaminayay mujaahid Ibraahim Xuseen Dhegaweyne dhinaca taliska ciidamadana waxaa xilkooda hayay mujaahidiinta ay ka mid yihiin Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdilaahi Askar Ilaahay naxariistay jannaha ka waraabiya waa kan mar kale mujaahidan cadde oo Ilaahay ha u naxariistay inooga warramaya sidii uu u dhacay howlgalkaasi waxa aanu ka soo dhaqaaqnay meesha la yiraahdo Sheekh Molde waajibaadka iyagana markaa Sheekh Molde aanu joognay aanu safaray wuxuu ahaa 4 galabnimo inaynu ku dhufanno haddii la inaga xog roordayn habeenina kala dhex galo waxaa nagu dhacday jidgooyo badan oo fara badan baan ugu dhacday walidka warqabay dabcan soo socdo waana laga warqabay markaanu soo dhaqaaqnay siigadu cirkay gaadhay way baasuukay ciidamadii faranta isu rideen way soo dhaqaaqeen ilaa digniinta 3dii cashaa la bogtay marka waxaanu soo qaadnay wado imaka halgan loo bixiyay ayaanu soo qaadno qarta jeexa waxa naga soo horeeyay dhowr nin oo ku jiro gacma dheere oo ku jiro ninka lagu yiraahdo Yusuf Gadle nin dhintay ila Ali Mahdi rag dhowrana laga soo horeeyo gantaalaha nin la yiraahdo Sheene
محمد عبد علي بالير ولا حبط قروقن تاليا نقول هدين وسيدي نوغو سو غلاي نينكاسay warsiisinayeen ciidanku markuu soo galay way markii ay nagu dhacday jidkooyooyin badani gabalkii baad nagu dhacay waqti dambaanu gudnay ciidan bay naga daba keeneen gaari la yiraahdo dhuun la yiraahdo garan BM ayaanu dhulka u dhignaan ku ridnay dhunta hadda aragto dhulka la dhigaya iyo cabaadkii sameynayso waa yaabad soo bixilay ciidankii daba socday halkii dib u noqdo ciidankanu shafka isku haynay ciidan nooma imanin markaanu soo dhaqaaqnay waa arkayeen waayo de waxay leeyihiin kiriga ku ilaqay weeye markaa waxaa dhacay waxaan wadada dheer baan soo qaadnay waxaan noo timi diyaarad uu wado South Africaanku oo la yiraahdo Mick Hunter way sahan bay ahayd diyaaraddu inta xagga hore nagaga soo qabatay xagga dambe markay joogtay soo noqotay waxba laguma ridin way annaga shilka ku yara ridnay way lama aan helin sahankii de warkii bay geysay war waatan la idin soo galay ha iska soo soconado waxaanu nimi Sheekh Umar baanu nimi way Sheekh Umar markaa xagga galbeedka Hargeysa dusheeda roob ka da'ay way xareedii iska cabcabnay soconay waxaanu dul nimi meesha la yiraahdo fooqa taliska qaybta 26 wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland halkaasaanu nimi xagal baa loo jiray bariga malaha barkaa waxaanu u fadhiisanay nimankii 30 talaabaan u fadhiisanay ciidan kun iyo waxoogayaanu hay waanu shadno dib baanu saraakiishii isugu soo hadhnay aniga balaanka iyagu markii hore wuxuu ahaa inaan galo airportka way maxamed cilmi samatarna uu qabtan galo axmed dhagaxna uu bijeex galo ayay ahayd balaankan ku soo dhaqaaqnay laakiin markii jidgooyo badan nagu dhacday waqtina ay noqotay balaankii waa bedeloo ciidanka waan soo ururinaynaa wadda ciidan airportkii geyn mayno waxay noqotay markaa inaanu nidhi ciidankii istaaga jooga halkaa fadhiista dib baanu isugu soo noqonnay waanu markaa noqonnay in aanu tashano aniga la yidhahdo waxaad gelaysaa qaybtii weynayd waxaan leeyahay qaybtan birjeex halkii ingiriiska dhisay qaybta halkaasaad gelaysaa maxamed cilmi samatarna waxaad gelaysaa taliskan qaybta 26 ayaad gelaysaa axmed dhagaxna qoladii la odhan jiray dhabar jabinta station blacekii idaacadda oo ciidan fadhiyo ilaa halkaasaad gelaysaa balaankii saddexdaasaan nidhi markaanu goorsannay ee aanu dhammaysanay ee aanu nidhi istaagnay ayaa aniga hadalla layga keeno waxaan ku idhi war tolo maalkan iyo shacabka bartaga ku dhuftaa mise qaybtanaan dhinacan ka marayo xaggana ka wareegaa maxamed cilmi samatar baa yidhi oo anigu aan nin lagu jiro u aqaano ayaa yidhi war ciidankaba intaynaan la kala bixin oo inaan kala kaxaysan ayaa xabaddu inagu dhacaysa afka markuu ka qaaday inagu bilaabeen annagu halkii taagtaagan ciidankii awatay iyo kii kale wuxuu Allahu akbar baydaan meesha bay jeedeen isla markiiba dee ciidankii waa yaacay faqashta waa yaaceen way hinteen meeshii markiiba aniguna waxaan goostay adigu ciidan waxoogeeya oo ku jiro gaari suuya iyo gaari dhuun BM oo garambiyo markaa lagu soo xidhay Toyota ayaan goostay birjeexba ku hagaag miishigayga hore birjeexba loo kici weydaa oo muddo badan aan isku qasayn ciidanka waxa hogaaminayay maxamed caali kornay maxamed caali ciidankii baa loo kici waaday waa yaabnado dib baan u soo noqono marka horta xabadda waxay nagu bilaabeen marka hawlaha guud marayno ayaa xabadda nagu bilaabeen iyaga nagu hor bilaabay marka uu isku ridday taarka ciidankan dhuuntan kala gal markaan aragnay inaan kacin baan dhuun garambiya ku ridnay dhuunta haddaad aragto waa dayuurad 22 kugu soo ordaysa oo ololka iyo uurada iyo cabaadka iyo qaylada ka yeedhaysa aanad malaynaynin wax hore loo arkayna maaha wax infantaridii aan ahaa iyo ciidanka weliga intan dagaal geli jiray aan arkayn ha xagga dambe laga soo ridaa BM-ka waan ku dhaweey ciidankiiba balaayada iyo waxa ku soo socdaarkoo qacbay ka sigan suuqay galeen dirayskay wada dhigeen waa yaaceen dhar cadcad bay qaateen waa yaaceen xiradii oon cidi joogin ayaanu gal halkaa waxaan kaga soo daayay niman fara badan
ciidamada aagamaka ayaa tira ahaan kunka waxooga aya kor u dhaafayay faahfaahin dheeraada inuu inaga siiyo ayaanu ku codsanay mujaahid maxamed cilmi galaan oonu kula xidhiidhnay khadka telefoonka isagoo oo mujaahidku ka warcelinayo codsigaasi oo ka soo bilaabaya intii aanay soo gaarin Sheekh Moolde iyo sidii ay taliska ku qabsadeen ayaa waxa uu yidhi waxaanu ka dhaqaaqnay qaybta galbeed barta la yiraahdo Balesamatar waxadka magaalada Hargeysa waxay u jirtaa ilaa iyo dhowr iyo 50 kilomitir bay u jirtaa marka xagga cirka laga eego xagga dhulkana wax badan kama badno intaasun marka ciidan badan mu ahayn waxaanu qaybsanay qayb artillery oo الله نحرسي هذا دمعوتي عيدا لا يلاحظه سيد عمر أنا نقول مرح كاي أي وعيدا كورن كعادي السعودي حق هو السعودي عيدا كيجوس حجانا وحوها عيدا كي صنعاني عيدا ك صد نقول سوي حجانا وحوها عيدا كي بدي جوهر قيمة شوقي شري أو إلى واحد وتيس كان أحمد دقح يا عبد الله عدة عيدا كوتي عيدا كصنعاني وحوتي هذا عبد محمد هيبي هي وتي يو ninka loo dhan jiray alif doon iyo loo dhan jiray weerar afartan bayuguna watay artillery aadan maciyo waxa watay yom ha iyo sarkaal kale ciidanka Sayyid Umar waxa waday aniga iyo Maxamed Jaacdoon iyo nin civil ha dhintay loo dhan jiray aadan garoof Allah naxariisto ساسم خلاهين waxaanu ka dhaqaaqnay Balesamatar labadii baanu ka dhaqaaqnay markay saacadu ahayd waxaanu marnay meel leeyahay raarida faaf oo halka keynta ugu ballaaran tahay marka may filin halkaanu ka soo dhaqaaqnay way noo diyaar garoobeen runtii iyagu waxay ciidan dhigeen wadada isku xidha Hargeysa Garabis Dacwaley iyo Wadabariis taasay halkaas ciidan dhigeen marka dhinaca kale waxa yaalay ciidan Cabdiroosh marka anagu halka kama qulqulno meel aanay filayn ka qulqulo oo halka kaynta u ballaaran tahay ka qulqulay ciidan yar aan badnayn oo ilaa 20 ayay dhigeen meesha la yiraahdo Sheekh Moolde marka ciidanka markii uu kala yeerinay maanaan joogsan kolonyo dheer baan runtii markaan mas'alihi gaadnay oo waqtiga socodkayna uu gaabinayay aadaan u gaabinaynay wala istaagtaagay kulba ciidanka oo isu sugaynay waqtiga ciidanadu si gaabanayso ayaanu gaadhay wadada masallaha marta marka ciidankii garka joogay garka yaalay iyo ciidankii korbarraga yaalay noo diyaar gareeyeen Dacwale iyo Garabis u dhaxeeyay ayaa halkan lagu qabtay halka dagaal baan ugu qabsaday markii intaan ciidadu dhicin markay ilaa gobolka waanu isu gabar ridanay markii ilaa 7 markii gaadho ciidanka waanu kala wareegnay kulli waxna jirkaan ka daadimay waxna dib baan u celinay 8 habeenimo markii aanu sidaan u surursanno roobana helay roobkii waanu ka jirsanay ilaa 9 barkii ayaanu dhaqaaq markaa bilownay dariiqii aanu islahayn mara oo aanu isna salaha markaan dhaqaaqnay waan xorneen xidhan yahay rasaas xoog la naqsatay marka meel u dhaxaysa dhulka xaraf meesha la yiraahdo iyo meesha xaga la yiraahdo ayaan dadka daadignay oo iska qaabaqow baabuurtii ciidanku saaray waanu ka tagnay intii technical ahayd ee reedan wadanay iyo waxa dhaadhacay ciidankii lug baan ku dhaadhacnay ciidankii saddexaad ee Axmed Dagax iyo Cabdullaahi Cali Ibsi ay wateen halkii baan ka tagnay iyaga dabatana labadii ciidan baa dhaadhacay ee kale ciidankii Sayyid Umar iyo ciidankii Sanacina baa dhaadhacay waxaanu gaadnay markay ahayd labadii oo rubucla ayaanu taliskii gaadnay markaanu taliskan qaabilsanaa ciidanka Sanacina wuxuu qaabilsanaa gaaska labaad dabatana dushu ka wareegay isna xagii gaaska labaad buu kacay anaguna waxaanu maxaan ku nahay aanu ku toosnay taliskii dagaalku markaa wuxuu nagu qarxay ilaa labadii rubuc ilaa labadii meelaha inta u dhaxaysa taliska markaa waxaan gacanta ku qabtay markay ahayd 3 rubuc taliska gacanta ku qabanay ciidankan aanu la dagaalanay ciidan xoog loo ahaa oo taliska qaybtu ayuu ahaa hadii tireeda maxaan ku raay laga waramo oo tiro aad iyo aad u fara badan waad garan kartaa qayb dhan ciidanka jooga qaybtan ka soo qulquleen waxay ahayd halka loogu talagalay difaaca qaranka ee jugta weyn yar baanu ka maray dhinaca ugu way halka lama soo mari karin wax weyn wajaale gabiley arabsiyo waxa wajaale kala beed gabiley arabsiyo Hargeysa halka wadaniga ugu ciidanka badan marka dhinaca ugadan ka yar maray waxa bariga marka saasan meesha u soo galma baan soo gali karin hadii kale se kolka waxaanu gacanta ku qabanay meesha taliska qaybta waxaanu gacanta ku qabanay markay ahayd labadii habeen 3 rubuc habeenimo hogaanka ciidamada SNM iyo xilalkay kala hayeen mar kale hayna la wadaago mujaahid Korneyl Maxamed Cilmi Galaan taliska galbeedka waxaanu ciidankan aan wadno waxa madax u ahaa Ibrahim Dagaweyne waxa ku xigay Dayib Guray
waxa ku xigay Muuse Biixi oo saadka u hayay waxa xoojinayay saddexda sarkaal ee taliska xoojinayay Cabdillah Askar iyo Cabdiraxmaan Cali Faarax iyo Cabdiraxmaan Dowlad Dahable ayaa xoojinayay marka waxa weeyaan lixdan waxay taliska ahaayeen ciidamadan waxa watay anigoo Maxamed Cilmiya aadan Cabdi Abiyad oo ciidanka Sancaani watay iyo Axmed Daahiro oo watay ciidankii guutadii 13aad ee Alshiine ciidamada bariga waxa madax ka ahaa Burca galay Axmed Mire ciidanka dhexdeeda calaad la galana waxa watay Xuseen Daarin kala yiraahdo ayaa isla watay saraakiisha la waday waxay ahaayeen Axmed Weys Cadde iyo ninka loo oran jiray Allah naxariiso u dhintay Axmed Jaansaban Maxamed Cali iyo ninka sirarka madaxda ahaa Xuseen Daara ahaa Allah naxariiso markii xogaga SNM gacanta ku dhigeen magaalada Hargeysa siba xarumihii ciidamada ayaa waxa tiro beeleemeedkii iyo dhaawacyadii ciidamada afweyne waxaana lagu raseeyay dhakhtarka weyn ee magaalada Hargeysa sidaas darteed ayaa dhaqaatiirtii guryahooda la tagi karayay ay ciidamadii afweyne isku bahaysteen inay gacanta ku soo dhigaan inta aanay fursad u helin inay kaalmadooda u fidiyaan ciidamadii SNM waxaana kamid ahaa dhaqaatiirtaasi Dr. Aadan Beergele waxaana khadka telefoonka wax kaga weydiinay sida ay xaaladda dhakhtarka magaalada Hargeysa ahayd xilligaasi waxaanu yiri Dr. Aadan Beergele sida tan casarkii markay tahay baabur ciidana gurigiisa la soo dhigay dhakhtarkii ma jooga soo bax waa la qaaday baaburku waxa jidiro xagga dambe waxa ka buuxa askar ba fadhida qoriyo xaraha ana shirkay geliyeen faas buu soo cararay gaariga markaa nasi wanaag nabad baan ku soo gaarnay cusbitaalkii oo san shalay ka tagay ma hayso sida kala oo shalay markii aan ka tagay beeshana jiifay maanta beeshan ma joogo waxa beeshan oo meeshooga beeshanadii hore ma joogaan waa la wada saaray waar walba waxa ka buuxa dhaawac askarta xaga qolka miidka ciidaas miid badan baa ka buuxa dhakhaatiir badan ma joogto dhakhaatiirta wixii dagaalku ku dhacay xagga waqooyi magaalada joogay jabhadii way raaceen ama deebaabay soo bixi kari waayeen xaggeena waxa la soo helay aniga iyo Obolos iyo Dr. Ismaaciil iyo groupkeega sanad la soo helay una la soo qaaday meeshan lagu soo xiriyay wixii la soo gaari kariyay markaas maxaan qaban waa naga farabatay shaqada waxaan qaban karnaa ma leh ciidaas ka dhaawac ka badan yahay miiska ka daran dhinaca kale jabhada iyo shicibkii magaalada wax ku dhacay war ma hayno laakiin waxaan arkaynaa in xagga dagaal ka socdo oo mar walba baabuurta la soo rogayo dhaawac lagu soo daadinayo miidka habeenkii marka uu istaagi jirtay xabadii oo markuu waagu bariya tan la isku bilaabay sidaasaan u wadnay askartan dhaawaca waxay sitaan mid walba wuxuu sitaa wuxuu soo dhacay oo isagoo wax sitoo soo dhacay waxba ku soo dhacday oo isagoo sii dhimanaya waxa ag yaala bustayaal soo xaday iyo gooyaal soo xaday iyo waxoo dhan anagina nafmayna waxaan noo kariya waa markaasaan oo qiiroonayo deela warka ma haysid dadkii ma haysid war ma haysid warkaad haysaa waxay ku dhiibaan waxay ku oranayaan waa la qabtay saraakiishadu waa la qabtay intii kalena way baxdatay intana waa lagu xeeran yahay hebel sarkaal hebel baa halka lagu soo qabtay sarkaal hebel baa tan la soo qabtay shalay soo sii socda marka naxdin baaba nafta ka baxay marmarna jabhada nagu soo dhawaato qarka meel klinikaygi intii soo dhaafaan baa isbitaalka dhan ka yacna maalin walba xasuunan meeshan la ilaahu yaa ka saara saadu baxda ma garanaysid maalintii shanaad markuu dagaal ku socdayna waxa bilaabantay madaaficdii safka ballaaran ee magaalada oo saf ballaaran from subax waagu markuu bariyo ilaa 7 fiidnimo daba joog marka uu dul maray madxu isbitaalku dul maray markuu dul maro wad gabanaysaa markaasay kuna askarta dhaawacaan idhaahdaa doctor madfaca ku dhacay adiga maqlimeys ku dad maqasho adiga kuma dhacayo ku dhaafaya marna qaar isna ma leedii keen inta joogtay dhakhtarka isna ma keenay dad shicib oo dhaawaca la keenay laakiin nalama ogolaan inuu daweyno way ku dhinteen meesha qaar ba ku dhig baxay dagaalkan 1988 dhex maray xogagii SNM iyo dawladii afweyne taariikhda adduunka ayuu ku soo kordhiyay dhowr waxyaabood dhinaca SNM waxa adduunka ku cusub in jabhadii guusheeda ka bilowdo magaalooyinka waaweyn sida Hargeysa iyo Burco sidoo kale in jabhadii muddo dheer soo halganto dalkana qabato kadibna gacanta ka geliso maamulkii dalka ee bulshada labada qodobba waxay u baahan yihiin in aad loo falanqeeyo saraakiishii SNM-tuna ay wax ka qoraan geesigii aqoonyahankii Ibrahim Megaag Samatare oo labadaasi arrimood ina dareensinaya ayaa waxa uu yiri koonfur waayo kama wanaagsan koonfur isku dad baynu nahay inaan iska dhigin superhuman being bani aadam caadi ah baynu nahay iyaga waayaragaasaan jirin waa kuwa isku wareeray inaga waayaragaasaa lagu nabad galay
golihii dhexe sanama dimuqraadiga la doorin jiray kasako guurtidii odayadaynu abuuray labadaa urur baa labadaa golaa isbalance garayn jiray ciidamadii baa jiray tala ayay ciidamadu ku socdeen inkastoo marmar isku dhac imanayo sidii waagii dambe kuu sheegay taladaasi somaliland ma wareegtay oy muddo ku socotay marka waa urur taariikhda kama arki karo urur kale oo intuu ku helay xukunka xabad caaradii haddana dadkii yidhi waa kaasi qaata oo tashada ka yara duwan oo ay jabadahana snm ay kaga duwan tahay iyadana aan taabto oo saraakiisha ku wanaagsanaan lahaa militariga waa arrin xagga militariga jabhaduhu badankoodu dagaalkan la yidhaha xarab alcisaabaad gorilla warfare gaadmada ah ayay muddo badan soo wadaan ama buuraha ama dooxyada ama meelaha hareeraha ama xadadka siday usoo gaatifayaan bay goob xoreeyaan goobta xormee marka dambe ciidan way dhisaan aakhirka caasimada la qabsadaa sanadkeedu uu ka duwanaa iswada dhex jir buu ahaa marxadkaanu ku weeraraa ciidamadiisa si gaadmaa u weeraraa mar si rasmi aanu u weeraraa annagoo ciidan iyo hub weyn wadana mar dhowr inanoonu diraanu gudaha u diraa mar buuraha hawl laga galaa mar magaalada gudaheeda wax laga qabtaa oo jeelasha dadka laga furtaa iyada intaasoo dham isku jirtoo la walaaqoy cadowga la wareeriyey ayaa markii dambe tallaabada ugu dambeeyey markay taasu dhacday mas madaxaa laga dilaayay magaalooyinkii ugu dambayn lahaa loogu horreysiiyo jif laysa siiyey waa istaraatiijiyad aan jabhadaha hore looga arki jirin marka ragga cilmiga militariga dhuuxa waxaanu lahaa bal arrintaana dib ha u galaan dhinaca dowladdii afweyne waxaa adduunka ku cusub inay isticmaasho tiknikada waaweyn oo dad iyo dunyaba ay dhulka la simaan amarka sidaas ahna waxaa qirtay maxamed cali samatar oo ogolaanshaha fududna ka helay afweyne uuna ku taageeray dhigica morgan oo ahaa inankii sodognimada wax ku noqday hase yeeshee dadkii amarka u heelanaa ee fuliyey waxaa ka mid ahaa dhagarqabe aweys geedow oo isaga oo ka hadlayay siduu yeelana yidhi sida tan waajibkuna waa aad hadda in la isticmaalo nooc kasta oo madaafiic ah meeshuu ku habboon yahay haddaba si wanaagsanka weerarka maanta la qaadahayo si wanaagsan u awsuusigeliyo waxaan isticmaalahayaa xeemahoo dhan kuwa salka guud kuwa jaamusa iyo kuwa masallaaba waajibkuna waa kala qaybsan yahay qol walba waajibkii aagi la siiyey inay naafiso ayaa laga doonayaa saraakiisha hogaamiyaasha oo meesha joogo waxaa kamid ah lamna cabdimadan khalaf lamna abaarbid iyo saraakiisha hogaamiyaal hore iga jira maadaama ay tahay qaab dagaal oo ay isticmaaleen sida ay ciidamadii afweyne dhulka ula simeen magaalada hargeysa ayaa shicibkiina u heli waayeen meel ay kaga nabad galaan hubkaa dhul iyo cirbays qabsaday ha inoo sharaxo mujaahid muuse bixi oo ka tirsanaa ciidamada snm maxamed cali sabtar isagoo ah madaxweyne ku-xigeenkii wakhtigiisii aad barray wasiir gaashaandhigaro waxaa aadan goryo ayaa hargeysa markii aanu 4 cisho ama 5 cisho ku jirray ee aanu ciidamadii dowladda xooggoodii ka saaray ee ciidankayagu joogo total oo ay xagga ay noo hadhisan tahay aanu barjeexya ciidamada ugu jeedsanaa ayuu cali sabtar hargeysa yimid dabeetana wuxuu dalbaday oo uu ahaa ninkii amarka ku bixiyey in magaalada lagu garaaco dabka naafaynta arrintaa isagaa qirtay BBC-du ka qirtay iyadoo ingiriisi ah oo cajardiya la haya ta u dheer dadka waa ninka qirtay magaalada ay ku nool yihiin 700,000 oo qof oo shacab oo maatiih in lagu garaaco madaafiic iyo diyaaradii iyaga cashuurtooda usoo iibiyey maalintaa waxaa dhacay baan idiin sheegay haddaba ummadda soomaaliyeed maanta marka laga bilaabo ninkii la odhan jiray munya ayaa madaafiicda garbasi u soo dhigay waxaa la cabiray magaalada hargeysa oo ah bari iyo galbeed markaa u ahayd 17 kilomitir koonfur iyo waqooyinu ahayd 13 kilomitir oo uu dooxu qaybiyo markaa iyagu waxay joogeen dhinaca koonfureed marka doox laga bilaabo xiriir ciidamada halka ahaa buurta ka dambaysa masalaha dheer inaan xarb bay istaageen xarun ka dhigteen nimankii taliska ciidanka ah markay amarka qaateen dabeetana magaalada ayaa loo soo hirtay taangala yar yar 7 kilomitir oo dooxa inta laga bilaabo waqooyi ah iyo 13 kilomitir oo bari iyo galbeed ah oo ilaa warshadii hargaha iyo saamaha xagga kalena ilaa iyo halka barigaasi la oran jiray buurta kala jeexan suuqadeeda in yar waa intii wax ka dhisnaayeen deetana waxaa loo qaybiyey in ku dhow 100 madfac oo kala jaada oo 120 leh oo da 30 leh oo nooc walba leh waxaa lagu soo jeediyey ilaa dhowr iyo 20 taangi waxaa lagu soo jeediyey ilaa 8 guuto oo to u yari ay dab ka ridayaan 300
ta u badanna 600 bal hadda waxaad cabirtaa markaa qoryaha dhuumooda marka saa loo soo jeediyey rasaasta ka soo dhacda halkii sentimitir yani halkii mitir 100 meel oo sentimitir waana xabad ku dhacda ama tu yar ama tu weyn 50 mitir waa inuu madfac ku dhaca ummadii halka ku nooleed inta waxa dheereed taliska ciidanka waxa ku weyn kala Faarax Saciid oo aniga isku kala saajirtay isna waxa lagu siiyay amal oo uu furiyay oo ay 3-4 diyaarado furiyeen in diyaaradu loo maalinta taanka loo buuxiyo ay kacdo ay 3 saacadood dul taagnaato ay si indhala aana bari galbeed waqooyi area garaacdo 13 kilomitir iyo 7 kilomitir diyaarada 3 saacadood waxay sidaa bambooyinkii iyo laba qorood waaweyn oo boobayaal culus oo dhowr soo mitira oo madfaco ka markay taasi dhamaysan saacadii bar ay cirka ku jirtay daadagaysan tii kala soo kacaysa waxaa halka ka cad inaan marna qorshaha dawladii afweyne ku jirin in la badbaadiyo dadka shicibka ah hase yeeshee xogagii SNM way badbaadiyeen dadkii shicibka ee taageersanaa dawladii afweyne iyo weliba qaar kale oo ka tirsanaa ciidamadii afweyne waa kan mujaahid booba yuusuf ducaale oo inoo faahfaahaya siday SNM ka yeeleen dadka shicibka ah iyo ciidamadii afweyne ee gacantooda soo galayba waxaana lagu eedeynaydaa anagu hargeysada yuruday iyo madaafiicu maanaan qaadan nidaamkii maxamed siyaad barri iyo ciidamadiisii maatida ku dugdurin jiray ayaanu anagu hubka u qaadanay laakiin ka hargeysada yurud iyo madfac lamaanaan dhicin hargeysa markii aanu bilowgii February soo galaynaanu qabsanaynay ilaa 29 January aanu berbere iyo soo galinay burcay halkan aanu dadka hargeysa soo galay baan ahaa indhahayga oo shana ayay sidaa wadada weyn ee dhakhtarka hormarta u marayeen wixii dhaqaaq kari waay baabuur baan ku gurnay oo ilaa meeshii xuduudda talowgeedahay ama wajaalaha noqoto ama qabri bayaha noqoto ama meelaha aan gaarsiin karayno saraakiil aan berbere ka soo qaadnay aan geynay baa jooga dhagax buur kuwii nala dagaalamayay baa ahaayeen kuwaasaan dilay haddaan u dilay hase yeeshee dawladda afweyne dhacdada ugu layaabka badan een horeyna taariikhda adduunka uga dhicin una maamulkiisu ku kacay waxa weeye in diyaarada ka kacaan garoonka magaalo isla magaaladana dadkeega laayaan guryahoodana dhulka la simaan hawshan iyada ah muddo badan ayay u diyaargarowgeedu soo socotay qorshaha afweynena meel mudan ayay kaga qornayd in diyaarado loo adeegsado la dagaalanka SNM waxaa loo odhan karaa qorshaheedu wuxuu bilaabmay 1982 markii dhidibada loo taagay xidhiidhka ciidamada cirka iyo dilaalkii jaamac guuleed cabdi oo ku magac dheeraa jaamac bulo waxaanu qorshahaasi siduu ku bilaabmay ka waraysanay gaashaan la dhexe duuliye sare yaasiin maxamed xayiisi waxaanu yidhi bismillahi raxmaani raxiim alxamdulilah magacayga waa yaasiin maxamed cabdalla marka hore waxaan u mahadnaqayaa maraykanka farshaxan fuaad iyo harwanaag cabdisalaam abu hureyra shaqadan wanaagsan ee taariikhda iyo waxyaabihii lasoo maray si fiican uga warrama 1983 ayaa dowladda imaaraadka carabta UAE waxay deeq u siisay Soomaaliya labadii wadan ee isku tagay waagii Somaliland iyo Soomaaliya 14 diyaaradood oo 10 ay tahay nooca Hunterka ama kuwa dagaalka fighter bomberka leeyahay qaado bombooyinka rasaastana ay ka dhacdo iyo 4 nooca Islanderka waa diyaarad Ingiriiska labadaba Ingiriiska sameeyay waxaa jirtay 83 markii deeqdi la siiyay diyaaradaha in saraakiil aniga ku jiro in la yiro waxaa tagaysiin imaaraadka carabta magaalada shaariqa la yiraahdo oo halkaas ayaa tababar ku soo qaadan doontiin kadibna waxaa tababari doontiin saraakiisha kale annagoo isdiyaarinay oo rabnay inaan tagno ayaa waxaana lagu yiri diyaaradihii saraakiisha tagi lahayd waxay ka koobnaayeen aniga iyo shaahir cabdi afrax duuliye oo diyaaradan Islanderkana loo tababar lahaa iyo Ismaaciil Fawjar iyo Mahdi oo Hunterka loo soo tababar lahaa 4 farsamayaqaan ayagana la diyaariyay inay raacaan nasiib daro waxaa dhacday in la yiri dadkan diyaaradihii dadkan aan tababareen diyaaradihii hadhowda la baxsan doonaan oo sidaa la yiraahdo loo keeno wadankii marka baa lagu soo raray waxaa laga soo dejiyay kadib Muqdisho waliba buurtii afisyoon ku aadsaneed baa la jeexay diyaaradihii la jiiray meesha laga soo dejiyay sidaa daraadeed ayaa waxaa dhacday
in ay keeneen duulayaal iyo farsamo yaqaan South Africana oo tababarkii markaa noogu bilaabay magaalada Muqdisho. Diyaaradaha iyo duulayaasha ay farsamo yaqaanada waxaa ka mas'uul ahaa oo qarashkooda bixin jiray nin la yiraahdo Jaamac Guuleed Cabdi Jaamac Bulu oo diyaarado ka iibsaday xaraasha waagii hore ciidamada cirka 1982 diyaarad Cessna 310 la yiraahdo laba motor leh oo tababar lagu sameyn jiray dugsiga tababarka diyaaradaha ayaa lahaa waa diyaaradihii lagu tababaray waagii ardadii Burundiga ka timid iyo saraakiil kale Soomaali ah waxaa kaloo jiray diyaarado kale oo 3 ah oo nooca Cessna 150 la yiraahdo intaas xaraash ku qaatay waliba lacag aad u jaban markaas halkaas ayaa xiriir ciidanka cirka uu ka soo galay kadibna isaga wakiil ka ahaa qolooyinkan caloos shaqaystada Koonfur Afrika iyo laga keenay haddii aan wax yar taabto qolooyinkan caloos shaqaystada si qarsoodi ah ayuu Cali Samatar ku tagay South Africa isagaa heshiiskan la soo galay qolooyinkan sida ay markii dambana ay xasuuqii weynaa ay ku sameeyeen Somaliland ay kaalin weyn ka qaateen qolooyinkan caloos shaqaystada ee South Africaanka waxaa xilliyada aad loo daryeelay garoonka diyaaradaha ee Ballidoogle lana keenay duuliyayaal iyo farsamo yaqaano u dhashay dalka Afrikada Koonfureed waxaanan mar kale ka wareysanay duuliye sare Yaasiin Maxamed Xayeysi oo ogaalkii inooga waramaya maamulkii duuliyayaashii iyo diyaaradihii yaalay garoonkaasi beeskan Ballidoogle waxaa ka ahaa taliya saldhig la Khaliif Ciise Yusuf waxay isugu jireen diyaaradaha yaalla meesha MiG-19 iyo Hunter Kamba duuliyaal fara badan ayaa joogay ku dawli jiray 19 waxaa kamid ahaa Axmed Maxamed Xasan Axmed Dheere waxaa kamid ahaa Mursal Haji Ahmed Maxamed Xasan Raage Hussein Aadan Ibrahim Axmed Burhan Hoori Maxamed Axmed iyo Xirsi Axmed Faarax waxay ku duuli jireen diyaaradaha 17 iyo 19 MiG-17 MiG-19 waxaa kaloo jiray duuliyaasha ku duulo Hunterka iyagana waxay kala ahaayeen Cabdullaahi Xaaji Xay Maxamed Xaaji Warsame iyo Maxamed Khaliif Fisaaq halkaa waxaa lagu carbin jiray dadkii loo igmaday dumintii magaalooyinka Somaliland iyo xasuuqii dadka Somaliland gugii 1988 bishii May 27keedii ilaa 31keedii ayaa xoogagii SNM ay gacanta ku dhigeen goobo badan oo kamid ah dalka iminka ah Somaliland waxaana goobaha kamid ah Hargeysa iyo magaalada Burco dadkii shicibka ah ayaa taageero laxad u fidiyay ururkii SNM dumarkii ciyaalkii iyo waayeelkii ayaa la bilaabay in la qixiyo lagana dhex saaro goobaha dagaalku ka socdo ee ay magaalooyinkaasina kamid yihiin maamulkii Afweyne ayaa adeegsaday awoodii ciidamadii Jamhuuriyadda Soomaaliyeed ciriya dhulba diyaaradaha ka kaca madaarka Hargeysa iyo Berbera ayaa aad u gumaaday shicibkii qaxayay iyo waliba kuwa ay guryahooda ku dumiyeen si aynu haddaba wax uga ogaano dadkaasi shicibka ah ee ay diyaaraduhu hubka kala daba tageen ayaanu weydiinay Cabdirashiid Cabdi oo kamid ahaa dadkii waayeelka kala baxayay goobaha colaadda waxaanu yidhi markii dagaalku 1988kii 5 cisho markuu socday waxaanu ku xanay meel la yiraahdo annayo oo qiyaastii u jirtay Hargeysa ilaa 20 kilomitir xagga waqooyiga markii aan joognay halka ku dhow ayaa waxaa nagu bilaabmay diyaarad sahan ahayd oo faqashtu lahayd oo markaas warar ka qaadaysay dadkii u soo qaxay halka miig ay faqashtu lahayd waxaanu bilaabay inuu joog hoose ku duulo meelihii dadku ay ku badnaayeen na duqeyn ku bilaabo fududayd waxaa bilaabmay duqeyn aad uga culus miiga arintaas mar qura nagama dul tegin kolka wax yar maqnaado oo shidaal yar saas uu soo qaato haddana uu soo noqonayay marka maalintii oo dhan duqeyntu way socotay dadkii aagaa joogay oo maanta oo maati u badnaa
meel ceel biyoodna dul deganaa ayaa wax allaaliya wax cuntaa may karsan because miigaasi mar kule kama dul tegin markii uu gobolkii dhacay ayuu miigii istaagay dabeetana dadkii way magaranaysaa markii la iswarwareystay waxaa soo baxday inay meesha dhimasho iyo dhaawacba inuu miigaasi geystay oo dadkii meesha joogay in diyaarada la keenay dagaalkana ka qayb qaatay waxaa sidoo kale inala wadaagaya duuliye sare axmed maxamed xasan oo ku magac dheer axmed dheere oo ahaa duuliyihii keliya ee dadnimadiisa iyo xilkaasnimadiisa ku muujiyey inuu diido xasuuqa dadka shicibka ah diyaaradiisiina fadhiisiiyey dalka jabuuti wuxuu yidhi isagoo u warramayay wariye axmed siciid cige sida tan markii ay soo galeen xoogagii SNMta oo kaas heshiis oo jiray dhex maray Ethiopia iyo Soomaaliya waddanka Djibouti oo ku dhex maray in markaasi la joojiyo hadba jabhadaynta ama yani iska soo horjeedka markaana jabhadii SNMta waxay soo gashay Hargeysa dagaalkuna halkaas ayuu ka bilowday anagu waxaan ciidanka cirka qaybteena ahayd aniga waxaan joogay saldhigga Balidogle waxaa yani halkayga soo horeeyay diyaarado oo 19 ah iyo diyaarado kale ee Hunter ah oo laga kala keenay labada saldhig Balidogle iyo Baydhaba waxaa yani dagaalku muddo socday inta aanan imaan halkan ka hor waxaana loo soo diray anaga oo miig 17 ah xoojin markaas aan xoojinaynay ciidamadii cirka halkaas joogay iyo kuwii dhulkaba wuxuuna ahaa yani dagaal nasiib darro ah oo aad iyo aad yani ummadda yani markaas Soomaalida ah ay murugo badan ku haysay qaarkoodna aan kala hadli jiray hadba sida markaas halkay u tahay inay ka qayb qaataan iyagoo ciidamadii xoogga dalka Soomaaliya ah inay dagaal dalkoodii ama dadkoodii ay ku qaadaan oo markaas dadka ay daafici lahaayeen ay markaas ay laftigoodii dagaal ku qaadaan waxayna yani aad iyo aad ayna qaarkood uga xumaayeen qaar kalena hadii way markaas sababa ay markaas sheegayeen hase yeeshee maamulkii afweyne aad ayuu u diiday in diyaarada ka qayb qaateen xasuuqa maatida iyo dumintii guryaha waxaana si cad inay u beeniso arrinta aan muran ku jirin u bareeray Sureer Abshir Haman oo qaabilsanayd safaaradii afweyne ku lahaa Ingiriiska gaar ahaan qaybta dhaqanka waxaana iminka ku sugan tahay cariga Ingiriiska iyadoo oo ka shaqeysa hay'ada samafala iyagoo waa yaab kale Sureer waxay u warramaysay BBC-da qaybteeda Ingiriisiga waxaana kamid ahaa waraysigaasi Somali government through its embassy in London denies any responsibility for mass killings. In fact, it even denies that there's been a full-scale war at all. A government representative told us that the air raids which killed relatives of Welsh Somalis simply did not happen. It's not true that the army is carrying out repressive activities against the people. That is a lie. It's a total lie. And we can prove this to you. I've seen film of an aeroplane dropping bombs on the city. I've seen photographs of devastated houses that could only have been caused by heavy shelling and bombing. I think you have seen an airplane. I do not think you have seen an airplane dropping bombs. There has been no bombardment in the north. And I repeat, no bombardment, no bombing. koox ka mid ah duuliyayaashii diyaaradahaasi iyo ciidamadii cirka ee jamhuuriyaddii Soomaaliya ayaa cadeeyay sugayna jiritaankeeda ayna ka mid ahaayeen duuliye Axmed Maxamed Xasan Axmed Dheere iyo duuliye Yaasiin Maxamed Xayeysiya haddana waxaanu raadinay dadkii waalidkood qaxinayay inay indhahooda ku arkeen diyaaradahaasi iyo inay caddayn karaan dad ay leysay waa kan Cabdirashiid Cabdi oo goobjoog ka ahaa dhacdooyinkaasi daga kale markaa aniga duqayntaasi diyaaraddu sameynayay runtii waxay leedahay aniga si gaar ah ay taabanaysaa waxaana ay runtii ka soo gaadhay dhibaato qayb kamid ah family-ga maalin kamid maalmihii dagaalku ka socday Hargeysa ayaa waxa ay xabad wasaaraha ahayd ku dhacday gabadh eedaya kadib dabeetana waxaa gabadhii soo qaaday aabo iyo walaaladay iyo ayayana way soo raacday moogtay soo qaaday dhankii geed deble markaas oo ay SNMta ku lahayd xarun caafimaad oo dadka dhaawaca lagu daweyn jiray markii dabeetana gabadhii la keenay waa la baaray dabeetana waxaa la arkay inaan xaaladeeda waxba u qaban karin kadib way soo noqdeen marka aabiyo waxay ku wada socdeen laba gaari bay wateen moogtay Hargeysa u dhow bishaatiyeeda ayaa waxay heshay diyaaradii faqashta moogtay dabeetana diyaaradii dadkii meesha saarnaa gawaarida saarnaa duqayn bay ku bilo intii markaa la yaaceen gawaaridii laakiin waxaa ka tegi kari weeyay ayay oo markaa saarnayd oo ilaa 30 jir ahayd
dabeetana diyaaradii halkii bay ku duqaysay halkii baana ku geeriyootay moogti isla halkii baana ugu aasay maalintaas. mar kale aan dhegaysano duuliye axmed oo ka warramaya diidmadii caddayd ee falahaan ku muujiyey iyo siduu ka yeelay hubkii lagu raray diyaaradda uu duulinayey lagana doonayey inuu dhulka la simo magaalada hargeysa waxaanu yidhi markaasna waxaan kasoo kicitinay magaalada muqdisho kaas gaalkacaysh dalka qaadanay kadibna waxaan nimid hargeysa maalin ayaan joogay marka habeenka waan hoyday maalintii baan joognay maalintaas waxaa jiray adiga diyaargarow oo markaas loo diyaargaroobayo bambooyinkii iyo qalabkii kale waxaa maalintaas iyadana sidoo kale aniga diyaaradeeda aan fariisiiyey oo markaas aheeday cilado iyo markaana maalintii dambe waxaa loo diyaargaroobay duqayntii iyo dagaalkii qiyaastii waxaa halka sii joogay ilaa isku dar adiga maxay dhahaa 10 diyaaradood oo hunter iyo iskugu jiray iyo 19 annaga oo 17 oo laba ahna waa kusoo biirnay markaasna hadee waxa weeye annaga waxaa markaasheenu aheeday kulley magaalada gudaheeda sidana loo soo sheegay inaan magaalada duqayna ka geysano taasoo markaasba aniga axmed ahaan aan go'aansaday inaanan yani magaalada hargeysa bambooyin waxa aanan ku ridin markaas ay ila muuqatay istooda meerle soomaaliya sida ay ula muuqato oo ah in dalkaygii ama yani shacabkaygii aan markaas bambooyin ku rido markaas sidaa darteedna waan ka tegey aan u baxay xagga iyo dalka jabuuti hargeysa ayaan ka kacnay annagoo 2 diyaaradood markaas waxdaa waxaan markaasna ahaa keena ama yani mishinkana la siiyey inaan duqayno magaalada qaybo ka mid ah markaana waan kacnay labadeenna marka waxaan toos u qaatay jihadii jabuuti oo marka horeba ku talagalay waxaan sii riday bambooyinkii oo aan qarxaynin xagga magaalada dibaddeeda markaana waxaan sii watay safarkii xagga jabuuti oo markaas aan ku gaaray xeebta jabuuti anoo markaas ka gudbay magaalada jabuuti cimilada oo markaas xumeed kiina shidaalkii ayaa iga dhammaaday isagoo gabaabsi ayaan waxaan ku degay degid oo markaas la yidhahdaa waxa weeye maaragtay degid aan markaa hadba meel loogu talagalaan ahayn waana ilaahayna subxana watacaala waa igu badbaadiyey waana yacni ka baxay xilligaasna waxay aheeday xilli maaragtay aad iyo aad u kulul markaana waxaan helay kalluumaysato halkaa joogtay gaaray markaa magaalada jabuuti iyo mataqaan dowladdii jabuuti oo ayagana si wanaagsan ii soo dhoweeyey oo markaana igu wareejiyey hay-adda United Nationskana waxaana la isweydiin karaa duuliye sare axmed dheere maxaa ku dirqiyey inuu diido amarkaasi ay siiyeen dhigica morgan dhigica maxamed cali samatar iyo dhigicab aadan gebyow oo dhammaantood xilligaasi joogay magaalada hargeysa siday u dhannaayeenna ka amar qaadanayay afweyne barre weydiintaasi isaga oo duuliye axmed ka jawaabayey ayaa waxa uu yidhi haddee waxa weeye amarku waxaa marka hore ka horeeya amarka inuu waafaqsan yahay waxaan u dhaartay waxaan aniga u dhaartay oo aan ciidamada u galay oo inaan dalka daafaco oo markaas aan shacabka iyo dalka aan daafaco laakiin ayagii inaan kusii jeesto oo markaas ayaga aan baabi'iyo dhaartaydu ma ahayn marka amarku amar sidaa u qaldan oo ahaa sidaa darteed ayaanan mataqaanaa uga baxay oo aanan u fuliyey magaalada waxaan u arkaa yacni nolol iyo nabad wanaagsanaan ka arkaa iyo mataqaanaa waxaan marna aanan filaynin wakhtiga aan ka tegey oo burburkii iyo wakhtiga hadda la joogo oo ah يعني وقتي يعني نبض iyo wanaag iyo nolol aan ka arko yani marka kale su'aasha kale oo dadka si soo dhaweeyeen waa si aad iyo aad u sarreysa iyo mataqaanaa soo dhaweyn diiran altinimo iyo mataqaanaa jacayl iyo waxaan la sifay karin amarnaba waana ku mahadsan yihiin walaalay xoogagii asanam waxay ku guulaysteen inay soo ridaan diyaaradahaasi oo 5 ka mid ahna ay dhulka soo dhigaan halka qaar kalena u fadhiisteen cilado farsamo oo ku habsaday magacyada duuliyayaashaasi waday diyaaradahaasi la soo riday ayaa waxaanu weydiinay duuliye sare yaasiin maxamed xayeysi oo ka mid ahaa duuliyayaashii Soomaaliland bay ka soo jeedaan howlgabka looga dhigay diyaaradaha markii dambe markii cilaaqaadkii laga kala goostay xaashka waxaa diyaaradana wax spare parts ah haba yaraatee ma aynan lahayn diyaaradahan oo spare parts la-aan ah haddana waxaa jirta wax tababar ah saraakiisha qaadan jireen ma laha waxa weeye waxaa lagu duuli jira un waktiga ay xafladan octoobarta ay soo dhowdahay bishaa unbaa tababar la gelin jiray duulayaasha iyo farsamo xumadii maxaan ku yidhahaa spare parts la-aantii diyaaradahan marka inta badanba waxay ahaayeen haddaa exit ama kursigan ejection seatka lagaga boodo diyaaradda
baaruudii ku jirtay kursiga waa expire garowday waxaa dhici karta in parts mar hore in la bedela ay ahayd oo weli ay ku socoto marka waxaan filayaa labaduba iskugu jirtaa in ay farsamo xumo ahaan ay cilado ku jirtay iyo qayb weynna ay mujaahidiintii SNM ay soo rideen waxaa kaloo jirtay diyaarad kaloo Somali Airlines ay lahayd Fockerta la oran jiray diyaaradaha looma kala harin waxa weeye sida loo dhibaateyn lahaa Somali Airlines diyaaradaheeda ama Boeing ha ahaato ama Airbus-ka ama Fockerta waxay soo daadgurayn jireen ama ciidamo ha noqoto ama hub ha noqoto ama wax kasto Fockertana waxaa lagu soo riday Hargeysa dusheeda saabsilayo kuwan kaloo badan duuliyaasha waday soo dhacay diyaaradaha waxaa kamid ahaa Maxamed Xasan Raagan MiG-19 ku duulay Xuseen Aadan Ibrahim MiG-19 ku duulay Ahmed Gurxan Hore oo MiG-19 ku duulay Maxamed Axmed Xayo oo MiG-17 ku duulay iyo Maxamed Khaliif Isaaq oo Hunter ku duulay dhacdada diyaaradaha duqeeyay magaalooyinkii ka duulayeen ayaa taariikhda adduunka ku gashay inay ahayd markii ugu horeysay ee ay dhacdo sidaasi darteed ayaa dawladdii afweyne lagu xasuusanayaa diiwaanka sooyaalkana ay ku galaysaa dawladdii ugu horeysay ee calooshadu shaqaystayaal iyo damiir laawayaal u adeegsatay inay diyaaraduhu duumiyaan magaalooyinkay ka duuleen shicibka oo isugu jira waayeel iyo carruurna ay laayaan abwaan Axmed Awgeedi ayaa maanso oo ku suntay weli dunida kama dhicin ku xardhay dhacdadaasi si aanay bulshada reer Somaliland marnaba u ilaawin waxaanu yiri abwaan Axmed Awgeedi sida tan sidoo kale ayaa magaalooyinka Hargeysa, Burco, Kalshaale, Gabiley iyo kuwa kaleba waxay isku bedeleen goobo toogasho ama sida loo yaqaano barka. Magaalada Hargeysa waxa goobaha loogu qoondeeyay in dadka la isku xidhxidho koox-kooxna loogu toogto kamid ahaa Malka Durduro oo qoryaha la isticmaalayay iyo halka iminka ah madaxtooyada Somaliland gidaarkeeda koonfureed oo la isticmaalayay qoriga Bronka ah ee la saaro Toyota. Markale abwaan Axmed Awgeedi dhacdadaasi isagoo oo ku muujinaya maansadiisaasi ayaa waxa uu yiri
intaasina dhegaystayaal waxaa ku ee qaybtii 20aad ee barnaamijkeenii dharaarihii tilmaanaa oo aad ka dhagaysanayseen reediyo mareegta farshaxan magaalada Hargeysa waana diyaarintii baada mareegta farshaxan daadiintii iyo isku dubiridkii anigoo cabsanaan Cismaan Umar Sheekh Abu Hurayra tan iyo dhagaystayaal kulantideena dambana ku dhaafayna wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh